wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo ka soo ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa waxa garoonka dayuuradaha degmada Cadaado ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo mas'uuliyiin kale. Cali Gacal Casir gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug oo warbaahinta kula hadlay garoonka dayuuradaha degmada Cadaado ayaa sheegay in kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka uu furmayo 4 bisha soo socota ee September isagoo ka warbixiyay ajendayaasha kalfadhiga horyaal. marka ugu horeysa ilaahay baa mahad iska leh kadibna waxaan u mahad celinaa xildhibaanada sharafta leh ee sida wanaagsan u soo dhaweeyay saa ogtiinba fasax gaaban ayaa lagu jiray runtii wax badan oo lagu dhaxwaday howl oo shaqaana way jirtay oo gaagaaban nasiinadii aan maaragtay fasaxan ku jirnana waa noo soo dhamaaday waxaan rajaynaynaa in haddii alla yiraahdo sabtiga haddii alla yiraahdo in aan isugu yeero ama ay yimaadeen dhamaantood guddiga arrimaha golaha si ay farsamadii maaragtay barnaamijkii baarlamaanka lagu furi lahaa ay u keenaan isla markaasna maalinta axadda ah baarlamaanka kalfadhigiisii ayuu dib u bilaabaa haddii alla yiraahdo marka waxaan codsanayaa xildhibaanada kaleete ee maaragtay hadda ka maqan Cadaado in ay si degdeg ah ku soo galaan oo ay waajibaadkooda ay gutaan howlo badan ayaa noo yaala waxa kamid ah miisaaniyadda noo taala waxa noo yaal barnaamijkii garsoorka waxaan kaloo rabnaa in aan maaragtay ayadana aan u gudubno barnaamijkii shaqada ee shaqaalaha iyo kadibna hadee doorashadii iyo maaragtay xulashadii xildhibaanadii iyo aqalkii sare iyo howlihii kale ayaa noo bilaabo doona laakiin inta ka horeysa howlahaasaan rabnaa inaan si degdeg ah u boobsiino sidaa darteed waa inay xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta kale maaragtay inay aad u soo degdegaan si aan waajibaadkeena u gudano maalinta sabtiga ah waa in xildhibaan kasta uu joogo magaalada Cadaado dowlad goboleedka Galmudug sidaasaan maaragtay iyagana ku wargelinaa aad iyo aad u mahadsantihiin. baarlamaanka Galmudug ayaa door ku leh doorashada dadban ee sanadkan ka dhacaysa dalka isagoo dooran doona 8 xubnood oo aqalka sare u matalaysa Galmudug. Maxamuud Cabdi Dirshe warbaahinta qaranka Cadaado.